haddii ay dhab ka tahay nimanka waxa saxiixay 40 cisho in lagu soo gabagabay karaan aaminsanahay laakiin sida looga bartay siyaasiyiinta hadba jidgooyada u dhigta in dalkaani uu dhibka ka baxo doorasho galo maskaxdooda inama ahan inay ka maqan tahay in marka kale la curyaamiyo oo doorashada la hor istaago shacabka Soomaaliyeed ayna ku xiran tahay inay iska hor wareejiyaan cidii isku dayda inay doorashada hor istaagto oo caqabad noqoto sababtoo ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxay u badan yihiin danahooda markay waayaan inayna dadka iyo dalka iyo diinta shaqo ku lahayn ay rabaan inay baabiyaan fikirkaas isaga waa badan yahay laakiin waa u sheegaynaa haddii la isku dayo in la curyaamiyo doorashada shacabka Soomaaliyeed ka cadoon inuu sameyn doono uu ka ceshan doonaan rajaynayaa haddana yaan la moogaanin dalka dawlad baa ka jirta dadka dawladii hore fiiri xildhibaanada qaranka kuwa ah ee fikirka mucaaradada iyo wax burburinta ka shaqeeya idaacadaha taagan maalin walba mushaar qaataan wali mushaarkooda lama joojin ilaa baarlamaanka kale lama dooran marka mushaarna waa qaadanaya anoo wasiir anoo xildhibaan anoo xil kala haya dawladuna ma jirtaan leeyahay waa aqli yaro iyo dawlad aqoon la'aan sidaas darteed haddii la isku dayo in ummadan dhibaato loo horseedo oo la hor istaago doorashada mas'uuliyaddu waxay saaran tahay hay'adaha dawladda oo wali jira hadduu yahay madaxweyne hadduu yahay baarlamaan xukuumad iyada hadda su'aal badan ka taagan oo waxaad moodaa inay ku milmeen intooda badan siyaasadda ka soo horjeeda dalka inuu xasiloonay ka dhacdo dawlad iyo doorasho sidaas darteed anigu waxaan aaminsanahay in doorashadu dhacdo siyaasadda dalka lagu badbaadi karna waa doorasho laakiin haddii anaasiiru isku dayda in la hor istaago dalku mas'uuliyadu leeyahay wali dastuurna waa leeyahay go'aanana waa laga gaarayaa cidii isku dayda in Soomaaliya gadaal u celiso sidaas ayaan ka qabaa waxaa soo hartay su'aasha gabadha waxa la diidan yahay qabiil ma oo ilaahay baa yiri wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'il lita'aarafu laakiin in qabiilka loo adeegsado dana gaar oo lagu awrkacsado waxa la diidan yahay dalku haddii uu ka soo baxay dagaalo sokeeya iyo dhibaatooyin ee uu u socdo wadadii dimuqraadiyadda ku socdo iyo xisbiyin la isku doono muddo yaraan noo dhimana Soomaaliya aan ku doobanno oo aan ku mintidno in dalkaanu uu xisbiyo u gudbo oo markaa qabyaaladu meesha ka baxo anagu qabiil la dirir mayno qabiil Soomaaliya dhan baa wada ah Soomaali inay hal qabiiltan horta aaminsanahay ee inta qaybinaysa waa inta Soomaalinimada dhiigeedu ku yar yahay qabiilka Soomaaliya oo aan nahay in dawlad loo gudbiyo oo wax qaybsiga oo noqday aqoon iyo karti iyo waxbarasho in lagu tago reer hebel hal la keeno ee midaan wax qorin waxna akhrin la keenayo wasiir laga dhigayo arintaas waxaa lagu gudbi karaa in dawladda la xoojiyo dalku xisbiyo u gudbo iyo dastuurka la saxo dastuurka Soomaaliyeed caqabada ugu weyn ee hor taagan waay ma aha midaan samaysan ogaada Soomaaliya waa naloo sameeyay markii naloo sameeyana dhibaatada uu nagu hayo waa aragnaa marka dib u eegista ku socota iyo waxaan rajaynaynaa baarlamaanka 11aad ee la sugayo inuu saxo dastuurka iyo awoodaha iska hor imaanaya ee ku qorno wada naqaano waana arin Soomaaliya u taale cid kale u taalo wax ka qabta ma jirto marka waxaan rajaynaynaa aqoon-yahanada iyo dadka u bartay wax dalkan ee jiilalka hadda jira iyo kuwa soo koraya inay ku mintiraan dastuur la saxo iyo Soomaalinimo iyo qarannimo in qabiilka laga daayo ogaada misaal baa idin sheegaya saraakiil baa Soomaaliya joog madaxda joog ka soo qaad saraakiisha iyo dhalinyarada ciidamada ku jirta wax soo barto dhiiga u horaya dalka xooga dalka Soomaaliyeed booliiska nabad sugidda asluubta aqoon-yahanada dhalinyarada ee gabdhaha iyo wiilasha dalka wax u soo bartay bal weydiiya ma qabiil baa darajo bixiyo oo sarkaal bixiyo oo korneel bixiyo oo janam bixiyo oo safiir bixiyo oo mushaar bixiyo qabiil waxa ma yaqaan shaqana kuma laha marka dawladnimada macaanteeda dhalinyaradu waa garanaysaa ee dalka gufracan ee khaldaya ee reer hebel oo dhahaya iska ilaasha reer hebel khasaare keenana faa'iido ma keenan horta waxaan rabaa inaan misaal practical idin sheego oo aniga soo maray waagii ra'iisul laga dhigay ahdigii federaalka ku meel gaarka ee berigii 2004 aan ra'iisul wasaaraha ku noqday ahdi qarameedkaas waxaa ku qoray laba qodob oo caan ah oo la yiraahdo qodobka 46 iyo qodobka 47 qodobka 46 wuxuu sheegayaa ra'iisul wasaaraha in laga magacaabi karo baarlamaanka dhexdiisa iyo banaankiisa qodobka 47 wuxuu sheegayaa ra'iisul wasaaruhu waa inuu xildhibaan ahaado baarlamaanka dhexdiisa ka yimaada waa laba qodob oo iska soo horjeeda oo ahdi qarameedka ku wada qoray oo ergooyinkii ansixiyeen oo charter noqday noocaas oo miirana ka buuxa horta wuxuu ahay dastuurkan ku meel gaarka oo qabyo uun taagan ilaahay aan ka barino horta inuu baarlamaanka 11aad ee soo socda uu dhameeyo oo una qabyo dambe nagu noqdo su'aasha aad ka keenteen oo ah ma la samayn karaa intaan madaxweyne la dooran mudanayaal baarlamaan hadduu inta fariisto oo ansixiyo qodob muxuu ahay dastuuri ah wuxuu u baahan yahay madaxweyne saxiixa iyo faafinta rasmiga in lagu qoro marka ma dhici karto madaxweyne la dooran in wax la bedeli karo laakiin markii madaxweyne la doorto ee xukuumad la dhiso waxa rabaa xukuumaddaas inay soo gaarto hindisa sharciyeedyo qodobada in la saxo looga baahan yahay amaba hadda noogu qoran dib u eegista lagu sii diyaasho
qodobo badan oo la diyaarshaa jira oo saxan waxna waa ka hareen waxaan rajaynaynaa in baarlamaanka soo socda iyo madaxweynaha soo socda inay wax ka bedelaan intaas ayaan ku koobaya waa diblomaasiyiinta dalka jooga ayaa halkaa la dejiyaa dowladdaana ka mas'uul oo amnigeeda ku ilaalisa maadaama amnigu uu yahay hadda arrinta Soomaaliya ugu weyn oo adduunku indhaha ku hayo walwalkaas awgiis ayaa meesha lagu ururiyay maran la control jirin waa soo marnay Sheekh Cabdi waxaan rabaa inaan ka raali gareeyo waxa Soomaaliya laga qaadayo 5 sano iyo 10 sano boqolkiiba hal ma dhama khayraadka Soomaaliya waa noo yaalaan weli in laga gaaro laga joojiyana waa wax sax ah go'aanka la qaatay maalin weyn lagu joojiyo mufkoona waa sax waa leeyihiin privileges waa la siiyaa diblomaasiyiinta iyo hay'adaha qaramada midoobay laakiin waxa ay dalka soo gelinayaan iyo waxay ka bixinayaan in la control iyadoo sharci ah oo immigrationka Soomaaliyeed iyo hay'adaha amniga Soomaaliyeed ay controlaan mudday ku soo caanamaaleen laakiin hadda inay dhamaataan rajaynaya mar dambana ayna fursad u heli doonin waxaan rabaa qodob kale inaan isagana ku gabagabeeyo ummadda Soomaaliyeed ma xuma ma isnacba danaystayaal siyaasiyiin raba inay qaybiyaan oo kala xirxiraan oo calamo u kala yeelaan oo xuduudo u kala yeelaan dalka Mareykanka oo weynkiisa aad ogtihiin oo intuu kontonka state ka kooban gaariga gees maraya ama tareenka ama diyaaradda hal meel lagu canshuurtaas waxay ku dhacdaa treasury ay leedahay dawladda dhexe oo loogu qaybiyaa kontonka state ay ka kooban tahay Soomaaliya markaa socoto 100 kilomitir bay lagu yiraahdo waxaad gashay calan hebel iyo deegaan hebel canshuurkeen sharcigaas weli waa naga dhimaya marka baarlamaanka 11 soo socda ayaa Ilaahay ka baryaynaa in canshuur midaysan iyo dalkooda dhaqdhaqaaqiisu xor yahay iyo ummadda in loo qaybsho resources iyo dhaqaalaha iyo khayraadka inay ku guuleysato dawladda soo socota ee baarlamaanka soo socda Ilaahay ka barino kana shaqeyna inaan wadada laga leexin dhalinyarada aqoonyahana tihiin iyo siyaasi dan lagu idin adeegsan oo xaabad dab lagu shitaydan ka dhigan oo ummadana lagu burburin finally waxaan rabaa inaan ku dardaarmo dagaalada loo soo safrinayo Muqdisho ee la rabo caasimadda in lagu burburiyo ee hantida ummadda wada leedahay lagu burburiyo ee dadka masaakiinta lagu burburiyo ha ka waantoobaana kuwa ku fikiraya oo ku riyoonaya taas gurigooda kuwa soo gubiyay guryaha Muqdisho ee caasimadda ummadda gubin meelaha ay joogaan ay ka taliyaana iyay gubin hadda baadiyaano oo ummadda ay u adeegayaan madaxda u yihiin waxay ka rabaan ha ugu shaqeeyaan nin qoray ku qabsado ma jira waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed ma xuma laakiin waa xumaan kara hogaamiyo siyaasigu waa xumaan kara waxa la yiraahdaa Soomaalida cilmiga militariga askari xun ma jira hadoona jirin taliyahan Soomaaliya wadada ay cagta saartay hadda in lagu wado aan ka wada shaqeyno kuwa iimaanka Allah geliyan leenahay dadka la khaldayay ay ka digtoonaadaan leenahay ilaahayna waxaan uga baryaynaa inaan ku guuleysano doorasho xalaal ah oo ummadda Soomaaliyeed iyo mustaqbalka jiilalkeena way u hayaan waan idin salaamayaa wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh markale noo ahaan doonta